ra'iisul wasaare Rooble ayaa ku adkaystay inuu maxkamad la tagi doono madaxweyne Farmaajo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku adkaystay inuu dacwad ku soo oogo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida aan xogta ku ogaanay Rooble ayaa go'aankan u sheegay xubnaha golaha wasiirada shirkii habeenkii Jimcaha ay yeesheen ee laga soo saaray cambaareynta afgambigii fashilmay ee xarunta golaha wasiirada 27 December 2021 iyo guddigii baaritaan ee loo saaray arrimahaasi. Maxamed Xuseen Rooble ayaa si kulul ugu sheegay golaha wasiirada in Farmaajo ay ku lug lahayd afgambiga la tigsanayo sharciga wax kasto ay ku qaadato lana tagi doono maxkamadda gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Rooble ayaa xalay magacaabay guddi ka koobnaa 5 wasiir oo soo baara wixii 27 December ka dhacay xarunta madaxtooyada oo lagu tilmaamay afgambi markii laga hor istaagay inuu tago xafiiskiisa. Afhayeenka Farmaajo ayaana beeniyay inay jiraan ciidamo ra'iisul wasaaraha hor istaagay, laakiin wuxuu sheegay in Rooble loo haysto kiisas shaqadana laga joojiyay inkastoo wareegtadaasi shaqeyn weeday. dhinaca kale 5 qodob oo ay tahay in xoogga lagu saaro shirkaasi ayaanu eegi doonaa kuwaasi oo kala ah kow sixidda habraacyada. waxaa jira cabasho ka jirta habraacyada iyadoo guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada iyo xitaa madaxda maamul goboleedyadu ay meel uga dhaceen habraacyada sida xulista ergada iyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka. kiisas badan oo ku saabsan isdawamareen ay sameeyeen guddiyada doorashooyinka taasoo keentay in la dhaliilo qaabka ay wax u socdaan keenaysana baahida loo qabo in hadda la soco si loo soo celiyo kalsoonida lagu qabo hannaanka doorashada. qodobka labaad ayaa xulista ergada. xulista ergada waa caqabad kale oo ay tahay in wax laga qabto loogana hadlo shirkan, waayo ilaa iyo hadda ma jirto hal guddi oo ka tirsan guddiyada doorashooyinka oo shaaciyay magacyada ergada, qaabka loo xulay, beesha ay ka tirsan yihiin, xitaa intooda badan lama arko wajiyadooda iyo cidda ay yihiin. arrintan xulista ergada waxaa dood badani ka keeneen musharaxiinta, odayaasha bulshada rayidka iyo xataa korjoogayaasha, waxaana la joogaa xilliga shirkaasi lagu sixi lahaa. arrinta saddexaad ayaa yareynta saameynta madaxda dowlad goboleedyada. aqalka sare ilaa iyo hadda oo lagu guda jiro tan golaha shacabka waxaa meesha ka baxday inay dhacdo doorasho keliya. waxaa soo baxa cidda ay xushaan maamul goboleedyada iyagoo gacanta ku haya guud ahaanba doorashada. maamul goboleedyada cidda inaan doonaynin ma noqon karaan musharax, ma ahaan karo oday, ergo ama xitaa horjoogto. waxaana jiray kuraas badan muran ka jireen sida kursiga hoob eber 67, kursiga hoob 1 iyo kursiga hoob 154. arrinta afraad waa kaalmaha guddiyada doorashooyinka. doorashadan waxa ay meesha ka saartay kaalinta guddiga doorashooyinka heer federaal iyadoo la awoodsiiyo guddiga doorashooyinka dowlad goboleedyada maadaama ay ku yimaadeen xulista madaxda dowlad goboleedyada. waana kooxda dambe cidda ay ku shaqaystaan madaxda maamul goboleedyada oo ay doorashada ku dhacayaan. waxaa intaasi dheer in guddiga doorashooyinka heer federaal xilligan ma lahan wax guddoomiye oo Maxamed Ciro oo uu ahaa guddoomiye waa la eriyay. waxaa kaloo isna ra'iisul wasaare Rooble uu eriyay guddoomiyihii iyo 6 kale oo ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka. labadaasi dhacdo waxa ay dhaceen dhammaadkii December. kooxda la ceeriyo waxaa lagu eedeeyay in ay ku milmeen siyaasadaha socda, shaqo gudasho la'aan. tusaale ahaan guddiga xalinta khilaafaadka waxa uu fasaxay kuraas muran ka jirtay sida kursiga Yaasiin Fareeq Qaati iyo kan Maadi Guuleed. waxaa kale oo wax ka qaban waayay kuraas kale oo cabasho laga keenay sida kuraasta kale ah hoob 237, hoob 239 iyo sidoo kale hoob 255. iyaga ayaana la sheegay inay iska qaataan lacagaha ay ka qaadaan dadka cabashada qaba. arrinta shanaad ayaa ah jadwal doorasho cusub. waxaa in ka badan 4 jeer lagu guuldareystay jadwal doorasho, waxaana kulankan uu noqon karaa mid lagu dejiyo jadwal doorasho oo la hubo xilliga lagu soo gabagabeyn doono doorashada golaha shacabka, lana dhaarin doono labada aqal, guddoona dooran doonaan, isla markaasna loo gudbi doono midda madaxweynaha. si kastaba isha ayaa lagu hayaa shirka golaha wadatashiga qaranka ee la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho, waxaana la saadaalinayaa inuu furmi doono maalinta berita oo Isniina, inkastoo wararku qaar ay tilmaamayaan in laga yaabo dib u dhac inuu ku yimaado shirkaas maadaama ay jiraan culays iyo xoogan oo hareeyay shirka.